وعشرة إنه كجاه لنا لينكس فيديو قصة حاد وحديثه قد بيني عشر كان أنا أحمد إبراهيم وحنا نجلس عدتين وebsite كي salsoftware.com أنا بيت كانوا فيسبوك كلنا هاي salsoftware سيجارة وحدي جلسوا حريري كرتان إيميل كيجا ahmedsayid01@gmail.com عشان كمان توحنا كويا جينا Ubuntu review إنه أركتيك جود كبحينه features كايلا هذا هاي Ubuntu لحية طبعا إبرافا مركب حساك عنا إمك Ubuntu سيدا جدًا بUbuntu واتن desktop كان سنة سوشيال نوع حالها Unity environment بالإياها Unity environment كان وديجان كايكوش قيسو Ubuntu هل كان start كذا start طبعا يدا اللي هذا start بطن بWindows كله لكن هل كان تنوع حلا هذا dash تيات كليك سين سمر كدون سنة software سوق على سوق عشان application كدوغن لأن application كذا مكورسا سيدا start دي Windows كواي search جولا هيد هل كان يمكن كوكورة terminal مركب وحصل بوضع terminal وأنا terminal كان يكون شغالين دونه أو كان terminal كان يكون شغالين دونه هذه لا هيك Ubuntu هذا يشير منيو باك وكبقى حق عسرية تجسا إنه مركب ساوسو بحضر كرسر ساوسو قادنا وحيد جروبيا مركب ساوسو تكتنا وصوب حيا مركب وحنا تجينا وحنا نقول فن نبل edit لأن profile preferences بنقول لنا هاي profile preferences ما نقول فنه حركة بالcolor بين تجينا بال terminal color كسم حكوا بدلنا حنا لنا كقعد تكتس إنه color كحكوا بدل كرنو وكان color كان يدل بالنا green or black بنقول لنا هاي وكذا شو بدل black on white بنقول لنا هاي سنة شو بدل color كهذانا green and black هذا نكون نقولنا ويسوق سيدا black وحنا نسوي كنا هاكم هاكو use transparent background transparent وحوي background خفيف أو لقى نحرك كرو وهكذا بيه مركب كذا هوكن تكتسارنا مركز تو إنه حاجة وينينا وسي خفيفة وسي رانيا إلى وديسكتوب كنا وكذا مركب من على جرا وهذا ركتب جدا سو مر ويراني تيرمينالكو وخفيفة يمر نسوي وينانا يو marka aan leenahay tiisi hore isticmaal tan ka qaatagta sidii normal ka ku celi laakiin inta saad inta madu idin gareyn kartaan kalarka doontaana wada dalban kartaan dabcan waxa iyaduna jirta hadii aan imika click sino system setting click sino appearance ka inuu iyadana buux ka eegno appearance markaan tagno hadii halkan waxaan ku bedeli karnaa desktop appearance ka halkan click sino inuu xagga dambe isbedelay saad u jeedid kuwan kalena waa dooran kartaa waxaan kala tagaynaa behavior tab kan inuu tagaynaa waxaad isagana halkan ka dooran kartaa tusaalahan haddii aad tig saartid halkan enable workspace hadaad tiraahdo halkan waxaa soo fadhiisanaya workspace switcher marka workspace switcherkan wuxuu ku sahlayaa marka aad windowyo badan ay ku furan yihiin daaqado badan oo sidoo kale markay ku furan yihiin waxaad aad click siinaysaa halkan markaas daaqado badan baa furan new desktop halkan ka soo kicinaysaa desktop cusub oo waxba olin halkan soo kicinaysaa desktop kale halkan ka soo kicinaysaa ay si fudud waad u jeedaa desktop kan hada wax ka soo furo xagan aan ka soo kale ka soo kiciyo aan saan ayar kuligu siiyo desktop kale xagan ka tagay ayar si fudud marka hadii jeer switcher kanina waa muhiim waan idin fiican yaad isticmaashaan sidoo kale halkan waxa ku yaala add show desktop icon launcher-ku waa halkan here is the launcher marka taskbar meesha Windows ka tirahdo iyadoo launcher bay tirahdaa haddaan halkan click siiyo waxa ka soo baxay maxay show desktop Windows ka oo kale Microsoft Windows ka oo kale halkan buu oli jiray dhinacan midigta ayuu oli jiray click marka aad siisana desktop ka ayuu ku tusayaa waxa Windows kacsan uu dejinaya waxa la wuxuu Windows soo kacsan uu dejinaya ay haddana halkan click siiyo wuxuu dejinaya waxa la wuxuu Windows kacsan haddaan ku celiyana uu soo kicinaya dib ayuu soo kicinaya marka kanina isticmaalkiisu waa muhiim aad isagana muhiim u tahay isticmaalkiisu haddaynu eegno terminalka horta waa meeshan ku shaqeyn doono cashiradeena dambe browserka la socda Ubuntu-ga as default isugu duubaya waa Firefox kadaan click siyo software version kiisana eegna sida ay maalin walba loo update gareynayo ay maalin kasta looga shaqeynayo Ubuntu ayaa Mozilla Firefox-na looga shaqeeyaa oo hadii jeer iyaduna ay u tahay up to date hadii aan markaan tagno xaggan sare aan ku dhufano help and enable about Firefox version-keedu waatan aad iyo aad ayayna looga shaqeeyaa maalin walba sableed garanaysa waxa laga yaabaa idinku aad soo download gareysan doontaan cashirka marka daawataan inay ka update gareysan tahay oo ka cusub tahay Firefox-tan sidoo kale waxa la socda iyadana ma isticmaalo san cashirka hore ku sheegnay Ubuntu ma isticmaasho waxa loo yaqaano Microsoft Office waxay isticmaashaa iyadu library office
writer oo kale Microsoft Word oo taqaana kan calculator bay taqaana kan oo kale hadaan soo kicino Office Word oo kale hadaan click siino soo kicino isagana versionkiisa aan eegno isagana sidoo kale waa up to date hal laga yaabaa maalin walba in update lagu sameeyo hadaan isagana xaggiisa sare tagno help aan tagno aan dhahno about Microsoft about Office aan dhahno iyadana waa kan versionkiisa isagana waa version 5.1.4.2 halkan ayaan ku dhufanayaa ayaan u dejiyo shaashadaha furan haddii aan doonayo inaan software cusub ku duubo oo kale halkan waxaa yaala wax ku qoran tahay Ubuntu software markaan ku dhufto dabcan software-ada waxaad ugu duuban kartaa haddii jeer operating system-kan Ubuntu waxay ka heshaa software-ada online halkan ayaad ku qoraysaa software-ka aad doonayso inaad ku duubto tusaale ahaan VLC baad ku qoraysaa VLC markaad ku qorto wuu raadinaya internet ku raadinaya markuu soo qabto halkan ayaa install kaga dhufanaysaa dabeedna installation saas si fudud ugu samayn kartaa laakiin badanka lama isticmaalo oo culayskan iyo wareegitaankan iyo raadinta internet ka raadinayo darteed terminalka ayaa lagaga duubaa marka terminalka ayaan isticmaali doonaa inagu casharadina soo socda laakiin halkan dabcan waa lagaga duubi karaa waatan halkan ayaa install kaga dhufanaysaa markaad install ku dhufatana password ku weydiinaya waad gelinaysaa saas ugu duubmaya marka haddii aan terminalka imika soo kiciyo ku noqdo terminalkan meeshan ku shaqeyn doonaa waa halkan casharadina dambe oo waxaan isticmaali doonaa waa terminalkan sababtoo waxa marka aad Ubuntu doonayso inaad barto you have to be familiar with this terminal commands waa inaad halkan ku noqotaa qof aad u garanaya imika hadaan idhaahdo who am I where you are Ahmed Kaid userkan qofka isticmaalaya halkan isticmaalaya waa Ahmed Kaid waa aniga hadaan idhaahdo itus meesha aan ku shaqeynayo print work directory wii sheegaya wuxuu leeyahay waa home Ahmed Kaid meeshan ku shaqeynayaan joogaa waa halkan waxaan filayaa casharkan inaad fahanteen عشان كل حاجة أنت مسكوك دون واحد يدري تشيني نبت قليل